يوغوسلافيا dal soo maray marxalado iyo magacyo kala duwan boqortooyadii Yugoslaafiya jamhuuriyadda hantiwadaaga ee Yugoslaafiya jamhuuriyadda federaalka ee Yugoslaafiya dal mar ahaan jiray astaanta midnimada iyo kala duwanaanta kaasoo ku yaalay galbeedka iyo bartamaha gacanka Balkaanka sooyaalkii hore Yugoslaafiya waxa ay ahayd dhul leh taariikh hodan ah iyo dhaqamo kala duwan kahor intii aan la sameyn gobolku waxa uu hooy u ahaa boqortooyooyin iyo qabiilooyin kala duwan oo ay ka mid ahaayeen Illyrians, Thracians, Roman iyo Slavka oo ah kuwa ugu badan gobolkaas laga soo bilaabo qarnigii 14aad ilaa iyo bilowgii qarnigii 20aad imbaradoriyadii Cismaaniyiinta waxa ay maamuli jirtay qaybo badan oo ka mid ah Balkaanka dhulka ugu muhiimsan oo ay ka talin jirtay waxa ka mid ahaa kuwa maanta loo yaqaano Bosnia iyo Herzegovina, Kosovo, Serbia, Montenegro, waqooyiga Macedonia ee qaybo ka mid ah Croatia iyo Slovenia. dabayaaqadii qarnigii 19aad ilaa iyo bilowgii qarnigii 20aad saameyntii dawladda Cusmaaniyiinta ayaa hoos u dhacday inkastoo ay daciiftay haddana wali waxa ay ahayd mid ka talin jirtay dhulkaas qarnigii 20aad sidoo kale waxa qabsaday oo la wareegay qaybo ka mid ah dhulkaas Austro-Hungary waxayna maamuli jirtay qaybo badan oo ka mid ah galbeedka Balkaanka oo ay ku jireen Croatia, Slovenia, Bosnia iyo Herzegovina kadib markii uu dhamaaday dagaalkii Balkaanka ee socday intii u dhaxaysay 1912 ilaa iyo 1913 waxa meesha ka baxay imbaradoriyadii Cusmaaniyiinta iyo Austro-Hungary kadib markii lagu jabiyay dagaalkii koowaad ee adduunka The 5-century-long Turkish rule was replaced by the Austro-Hungarian occupation in 1878. On June 28, 1914, the assassination of Archduke Franz Ferdinand in Sarajevo marked the beginning of World War I and the end of Austrian occupation. intaas kadib dadka Serbiyaanka, Croatiaanka iyo Sloveniska waxa ay samaysteen boqortooyooyin u gaar ah mid kasta sanadkii 1929 boqor Alexanderkii koowaad ayaa mideeyay waxa uu magaca dalka u bedelay boqortooyada Yugoslaafiya isagoo isku dayaya in uu dhiirigeliyo midnimada kooxaha iyo qoomiyadaha kala duwan ee ku nool dalkaas boqortooyadan cusub waxa ay mideysay dadka ka soo jeeda qoomiyadaha Islaamka koonfureed marka laga reebo Bulgaariya oo iyadoo ahayd dal gooni u taagan bal marka hore aan sharxaad ka bixiyo qaybaha ay ka kooban yihiin qoomiyadaha Islaamka iyo wadamada ay ku nool yihiin dadka Islaamka deegaankoodu waxa uu ku yaalaa bariga bartamaha iyo koonfur bari Yurub wadamada Islaamka waxa loo qaybiyaa 3 kooxood Islaamka waqooyi Islaamka bartamaha iyo Islaamka koonfureed Islaamka waqooyi waxa ka mid ah Russia, Belarus iyo Ukraine Islaamka bartamahana waxa ka mid ah Poland, Czech Republic iyo Slovakia Islaamka koonfureed oo ah kuwa mowduuceena sida qaaska ah u quseeyo waxa ka mid ah Slovenia, Croatia, Bosnia, Serbia, Montenegro, Macedonia iyo Bulgaria qoomiyadahan Islaamka waxa ay wadaagaan luqadaha Islaafijka iyo dhaqamo badan oo isku mid ah inkasta oo ay leeyihiin kala duwanaansho taariikheed iyo mid siyaasadeed haddana waa dad isku isir ah oo hal meel ka soo wada jeeda soo ifbixidii ilaa iyo dhicitaankii Yugoslaafiya boqortooyadii Yugoslaafiya waxa si rasmi ah loogu dhawaaqay 1929 taasoo ku fadhisay baddan 247,542 kiiloomitir oo laba jibaaran ilaa laga soo gaaray dagaalkii labaad ee adduunka erayga Yugoslaafiya asal ahaan waa eray Islaafish ah waxa uu ka yimid yug oo macnaheedu yahay koonfur iyo Islaafiya oo macnaheedu yahay dadkii Islaafka taasoo macnaha guud laga wado Islaafkii koonfureed boqorkii hogaaminayay xilligaas waxa uu dhisay boqortooyo kale talis ah isagoo isku dayay in uu awood isugu keeno yareeyana xiisadaha ka dhex jira qoomiyadahan kadib boqortooyadu waxa ay la kulantay xasilooni daro siyaasadeed oo weyn iyo dagaalo qoomiyadeed sanadkii 1941 Yugoslaafiya waxa ku soo duulay oo qabsaday quwadihii Jarmalka uu hogaaminayay taasoo keentay in la kala qaybiyo in muddo ah kadib waxa soo ifbaxay dhaqdhaqaaq xooggan oo iska caabin ah dhaqdhaqaaqaas waxa hogaaminayay xisbi shuuci ah oo uu madax u ahaa Joseph Broz Tito dagaalo jabhadeyn iyo iska caabin kadib
1945tii waxa ay xoreeyeen dalka waxaana madaxweyne ka noqday Joseph Broz Tito. dagaalkii labaad ee adduunka kadib dalku waxa uu ka gudbay boqortooyo waxa uu la baxay Jamhuuriyadda Federaalka Hantiwadaaga ee Yugoslavia. waxa ayna ku fadhisay baddan 255,804 kilomitir oo laba jibaaran. xilligaas dalku waxa uu ka koobnaa 6 jamhuuriyadood oo kala ah Bosnia iyo Herzegovina, Croatia, Macedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia iyo 2 gobol oo ismaamul hoosaad ah, Kosovo iyo Vojvodina, kuwaas oo hoos imaanayay Serbia. Yugoslavia intii uu talada hayay Joseph Broz Tito waxa uu hormariyay siyaasaddiisa hantiwadaaga u gaarka ah, sidoo kale waxa uu ilaaliyay dhaqaalaheeda isku dhafan, leena shirkado ay dawladdu leedahay iyo kuwa bulshadu ay leeyihiin. Yugoslavia markii hore waxa ay la safaneed midowgii Sovieti maadaama dawladaha shuuciga ay ka mid ahayd, laakiin waxay ka go'day 1948 waxayna raacday siyaasad dhexdhexaadnimo intii lagu jiray dagaalkii qaboobaa, iyadoo aan la safan midkoodna xulafadii galbeedka oo uu hogaaminayay Mareykanka iyo xulafadii bariga ee uu hogaaminayay midowgii Sovieti. sanadkii 1980 waxaa geeriyooday Joseph Broz Tito waxaana kordhay dhaqdhaqaaq lagu raadinayay gooni-goosad iyo dhibaatooyin dhaqaale. horaantii sagaashameeyadii waxaa bilowday burburkii Yugoslavia iyadoo jamhuuriyado badan ay ku dhawaaqayeen madax banaani. kadib burburkii midowgii Soviet 25 Juun 1991 Slovenia iyo Croatia waxa ay ku dhawaaqeen in ay ka go'een federaalkii Yugoslavia. For a week now, ever since the Yugoslav republics of Slovenia and Croatia declared their independence from Yugoslavia, the administration has been saying they were wrong, that Yugoslavia's unity must be preserved. Today, the emphasis shifted. The State Department says unity should not be preserved by force. There is no evidence the Yugoslav army is listening, yet another ceasefire has collapsed. 19 December 1991 Macedonia iyaduna sidoo kale. 1992 Bosniyaanka iyaguna waxa ay u codeeyeen in ay ka go'een Yugoslavia. kadib natiijadaas waxaa ka dhashay xasuuqii ugu xumaa kadib dagaalkii labaad ee adduunka. xasuuqaas oo la magac baxay Srebrenica, kaasoo Serbiyaanka iyo Kroatiyaanka oo dhinac ah ay ku xasuuqeen Bosniyaankii muslimiinta ahaa. waxaana jabhadahaas qowmiyiinta ay wadeen xasuuq isirsifeen ah, taasoo keentay markii dambe in ay soo fargeliyaan qaramada midoobay. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje. The Srebrenica genocide stands as one of the worst episodes of ethnic cleansing in Europe after the Second World War. Over 5 days, 8,000 unarmed Bosnian Muslim men and boys were massacred by the Bosnian Serb military forces, while thousands of women were raped. But the story of the mass murders and persecution of Bosnian Muslims does not begin here. After the breakup of Yugoslavia, military conflict quickly erupted. kadib markii ay ku soo hareen Serbia iyo Montenegro kaligood dawladdii Yugoslavia, Abriil 1992 waxa ay samaysteen federaal cusub waxa ayna la baxeen Jamhuuriyadda Federaalka ee Yugoslavia, kuwaas oo qaatay dastuur cusub. si kastaba ha ahaatee sanadkii 2003 labadan dawladood ee Serbia iyo Montenegro waxa ay go'aansadeen in ay ka tanaasulaan magacii Yugoslavia si rasmi ahna loogu bedelo Serbia iyo Montenegro. sanadkii 2006 midowga labadii dawladood iyageena waa uu burburay waxaana la sameeyay 2 wadan oo madax banaan. ugu dambeyn 17 Febraayo 2008 Kosovo waxa ay madax banaanideedii ka qaadatay Serbia. KFOR also seeks to improve living conditions by participating in the reconstruction of local infrastructure and by donating equipment. sanado badan oo colaado iyo qalalaasa siyaasadeed ay ka jirtay gobolkaas. Talaabadan waxa ay timid ku dhawaad 10 sano kadib dagaalkii Kosovo ee socday intii u dhaxaysay 1998 ilaa 1999. intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa mowduucii aan kaga hadlayay Yugoslavia. inta muuqaalka mid lamida kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.